shirkan jaraa'id waxay beeshan maanta ku qabatay magaalada Boorame xarunta gobolka Nowdal waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin, salaadiin, cuqaal oo waxgarad xildhibaano ka kala tirsan golaha wakiilada iyo golaha guurtida Soomaaliland oo beeshan matala iyo qaar kamid ah qurbo jooga beeshan. waxay shirkan jaraa'id beeshan ku daadufeysay qoraal dhawaan lagu baahiyay qaar kamid ah warbaahinada dalka taasoo lagu sheegay in beeshan ay taageersan tahay golaha wada tashiga iyo toosinta qaranka Soomaaliland oo dhawaan siyaasiyiin reer Soomaaliland ah ay kaga dhawaaqeen gudaha Soomaaliland. waxayna siyaasiyiintan, salaadiintan, aqoonyahankan iyo qurbo joogii madashan ka soo qayb galay ay ku cambaareeyeen golaha wada tashiga iyo toosinta qaranka Soomaaliland kaasoo ay ku tilmaameen mid aan ku tiirsaneen shuruucda iyo qanuunka Soomaaliland u yaala. waxayna beeshan taageero xoogan u muujisay xukuumadda Soomaaliland. halkan waxa fadhiya reer Nuur tiradu doonaba halahaado waxa fadhiya salaadiintii, xuqaashii, waxgaradkii kale, indheer garatadii, xildhibaanadii Hargeysa ka yimid waa u dhanyahay bay tahay. waxaan isugu nimid arrimo waayadan la hadal hayay oo internetada laga soo saaray ama jaraa'idka lagu qoray oo odhanaya qodobo badan ka koobanoo ay ku jirto yacni golaha sidaas baan taageernay. cabasho badan oo reer Nuur leeyahayna ay ku jirto. wixii cabasho ah waa wax jiro oon sidiisa u qaadanayn. waxaana la hortegaynaa dawladda. waxaan ayidnana dawladdaa jirta unbaa jirta. cid kaloon ayidsanna ma jiro. dadka waxaa looga taliyaa gudaha, dibadda loogama taliyo. dadka dibadaha joogaan ee adduunyada qaxootiga ku tagay ama danahooga u tagay uma taliyaan, dadka gudaha u taliya. wixii gudaha naga soo buxun baan go'aana. Soomaaliland waa la ogyahay golayaasheeda waa wax cayiman weeyaan oo wax maanta madmadow ku jira maaha. maantana golayaal cusub oo hal qaata la leeyahay oo lagu darayana ma ogin. sidaa darteed ragga way ka hadleen la leeyahay waxaan raacsanahay meesha la leeyahay waan teegaarnay de meel wax ka jiraan oon ku ognahay oo golayaasha ka tirsan ma aha, mana ogolin. annagu meesha la sheegay la taageero afkaasi afreer Nuur ka soo baxay ma waan la yaabanahay. meesha la sheegay maxaa gola dhaqameed baa jiray waa la taageeray annagu reer Nuur hadaan wax naga khuseeyaa ma jiro weey, wax naga khuseeyaa ma jiro. sidii salaadiintu u sheegtay annagu markii horena dawladda Soomaaliland baanu taageersanaan imikana aanu taageersanay. waxaan leenahay waxaan ka midnahay dawladda Soomaaliland, waxaan ka midnahay dawladdii hore ee udub reer Nuur Macaarid ma ahayn. udub uu la socday, maantana reer Nuur Macaarid noqon maayo. dawladda maanta jirto la socdaa, dawladda maanta jirta iyo la socdaa. anigu shakhsiyan horaan u hadlay wixii aan ballan muxuu ahaa hore uga hadlayna waxa weeye salaadiintii iyo odayaashii maanta waa kuwa muxuu ahaa wada fadhiya. wixii iyaga ka soo baxaana go'aana reer Nuur ama beesha halka fadhida waxay leedahay kala dambeyn iyo istixgelin iyo talo la isku qadariyo ayay leedahay. sidaas ayuun bayna wax uga soo baxayaan. muxuu ahaa meel kale oo muxuu ahaa de loo abuuro ma suura geliso. halka la yiri waa la taageeray anigu ma qabayn reer Nuur ka soo baxday waxba kama jiraan. waxa ay salaadiintu maanta ku hadleen ayaa asala, taas ayaa murtiya, taas ayaan anaguna taxaha taageersanahay. Cabdi Fataax Ahmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.